haddii aan ku dhaha ka waran waxaa jiro shay kaa caawinayo inaad miisaan iska ridid ama caloosha iska jartid. Shaygan wuxuu kaloo kaa caawinaa sanbabahaaga iyo wadnahaaga inay xoogeystaan oo ahaadaan kuwa caafimaad qabo. Shaygan wuxuu kaloo kaa caawinaa inaysan kugu dhicin sokor iyo kolestarool. Shaygan wuxuu kaloo kaa caawinaa difaaca jirkaaga inuu fiicnaado. Shaygan wuxuu kaloo kaa caawinaa habeenkii inaad si fiican u seexatid. dabcan markaan ku dhaho waxaa jiro shay kaa caawinayo waxyaabahan oo dhan, adi waxa iga sugaysaa inaan ku dhaho supplement ama kaniini. waxaan ku sheegayo supplement ma ahan, xataa supplement wax u dhow ma ahan. shaygan aan ku sheegayo free waaye, wax lacag ma joogo. dadka intuu badanna way suubin karaan. asxaabta soo dhawaada, saaxiibkii Maryolo Masal waaye, mininka minikiini waaye, adiga walaashay walaalkay. hadda channelkan ku cusub tahay, aniga magacayga waa Cabdinaasir. waxaan suubiyaa fiidiyoyo ku saabsan jirdhiska iyo raashinka. fiidiyowga inta ugu galin waxaan si sharaf leh kaaga codsanaa fiidiyowgan like na saartid, comment ka soo bixisid, asxaabtaada u share gareysid. hadaa wali subscribe dhihina fadlan subscribe leh, subscribe ka free way. mideeda kale waa ogtahay dadkeena dad badan oo arrimahan xiiseynayaan kuma jiraan. marka adiga fiidiyowgan fiirsanayo hadaa like saarin, comment ka soo bixin, asxaabtaada u share gareyn, qof kale ma suubinayso. mahadsanid. marka waxa aan ku sheegayo wax kale ma ahan, socod waaye. ma ogtahay maalintii hal saacada banaanka aad ku soo lugaysid caafimaadkaaga wax weyn ayay ka bedelaysaa. maalintii hal saacada banaanka ku soo lugaysid waxaa suurtagal ah miisaan badan inaad iska ridid ama caloosha inaad iska jartid. ma ogtahay maalintii hal saacada banaanka ku soo lugaysid waxaa suurtagal ah sanbabahaaga iyo wadnahaaga inay noqdaan kuwa xoogeysan. sanbabkaaga iyo wadnahaaga markuu xoogeysto wuxuu noqonaa kuwa caafimaad qabo, isla markaana si fiican ay u shaqeynayaan. ma ogtahay hal saacada banaanka ku soo lugaysid waxaa ka hortagaysaa inay kugu dhacdo sokor iyo kolestarool. anaga hadda Soomaalinahay waxaa aaminsanahay sokorta in laga qaado waxa macaan bes, taas run ma ahan. ma ogtahay hadaa dhaxda ama caloosha ka weynaatid ama meesha suunka laga xiranayo hadaa ka cayishid waxaa halis ugu jirtaa ama riski ugu jirtaa inay sokor kugu dhacdo. ma ogtahay hal saacada banaanka ku soo lugaysid habeenkii si fiican u seexanaysaa oo hurdadaada waxay noqonaysaa mid fiican oo quality leh. ma ogtahay hal saacada banaanka ku soo lugaysid maalintii waxaa xoogeysanayo difaaca jirkaaga. markuu difaaca jirkaaga xoogeysto si sahlan hargab iyo waxaas ma kugu dhacayaan. marka hadda su'aasha isweydiiska mudan waxay tahay haddii maalin walbo aad suubisid hal saac oo socod ah laakiin raashinka uusan saxsaneen, miisaan ma kaa dhaca? jawaabtu waa maya, miisaanka ma dhacayo hadduu raashinka saxsaneen. hadduu miisaanka dhacayo ama hadaa rabtid miisaan iska ridid waxaa khasab ah inaad ahaatid caloric deficit. raashinka aad u baahan tahay xoogaa wax ka yar inaad cuntid waaye, ama energy-ga ku soo galo iyo kan kaa baxo waa inuu badan yahay, kan kaa baxo kan ku soo galana uu yar yahay. markaas kadib ayuu miisaan kaa dhacaa. markay noqoto ama markay timaado miisaan dhimis waxaa khasab noqonayo caloric deficit. hadaa rabtid maalintii saacado badan oo socod waa suubin kartaa. socodkaas badan oo maalintii suubisay kaloriga aad gubtay hadduusan jirkaaga u keenaynin inuu galo xaalad caloric deficit ah, miisaan ma kaa dhacayo. marka tan xasuusnow, mar walbo haddii aad rabtid miisaan iska ridid waa inaad cuntaa raashinka aad u baahan tahay xoogaa wax ka yar. waxaa kaloo jiro khalad dadka ay suubiyaan markay rabaan dadka jirkooda inay geliyaan xaalad caloric deficit ah, waxay suubiyaan raashinka dhan ayay jaraan, gaajo isku dilaan. dabcan markaa gaajo isku dishid dabcan miisaan badan aan si dhaqso kaaga dhacayo, laakiin taas fikrad fiican ma ahan, sababtoo gaajada intaas leeg jirkaaga uma adkeysan karo. markuu jirka gaajada u adkeysan waayo waxaa imaanaysid inaad sii wadi weysid. markaasna waxaad dib ugu laabanaysaa raashinkii aad ku cayishay. markaasna miisaankii kaa dhacay dib ayuu kugu soo laabanaa. marka hadaa rabtid inaad ahaatid caloric deficit waxaa fiican ugu badnaan inaad tahay 500 oo kilocalorie. markaa 500 oo kilocalorie minus tahay energy aad ku shaqaysatid, energy aad socod ku suubisid, energy aad ku baratid, energy aan noloshaada kale ku raacatid, waa haysataa gaajo ma dareemaysid. miisaankana tartiib ayuu kaaga dhacaa, mar dambana ma kugu soo laabanayo. su-aasha kale oo isweydiiska mudan waxay tahay haddii hal saac socod ah aad suubisid meeqo kilocalorie ayaad gubaysaa? dabcan jawaabta waxay ku xiran tahay waxyaabo badan in la fiiriyo. kow waxay ku xiran tahay
socodka xawaarihiisa. dabcan marka dhaqso u lugaysid markaas kaloori badan ayaad gubaysaa. waxay kale ku xiran tahay meesha aad socodka ku suubinaysid. haddii meel bannaan oo isleeg aad socod ku suubinaysid iyo markaad dalcad ama buur kor u koraysid way kala duwan tahay. oo markaad dalcadda ama buurta kor ugu lugeynaysid markaas ayaa kaloori badan gubaysaa. waxay kale ku xiran tahay sidaa fit u tahay iyo murqaha aad leedahay. dabcan dadka fitka ah iyo dadka murqaha badan leh kaloori badan ayay gubayaan markay saacad lugeeyaan. isku duuduub average ahaan qofka normalka ah haddii hal saac uu lugeeyo wuxuu gubaa 200 ilaa 500 kilokalori inta u dhaxayso. waa ogahay adiga videoga fiirsanayo waxaa isleedahay ninkan waa waalan yahay, shaqo la'aan ka badatay, hal saac dhan iyo banaanka kusoo lugeyn kara. fiiri, hal saac oo banaanka kusoo lugeysid iyo raashinka aad cunaysid inaad iska fiirisid caafimaadkaaga wax weyn ayay ka bedelaysaa. xanuuno badan uu fadhiga kuu keeni lahaa ama cayilka kuu keeni lahaa saacadaas banaanka kusoo lugeysay way ka hortagaysaa. marka inaad caafimaad qabtid wax weyn uma baahna, waxay u baahan tahay bes hal saac oo banaanka kusoo lugeysid iyo raashinka aad cunaysid inaad iska fiirisid. saaxiib, laba goorba waqti uu ka baxaa. hadda caafimaadkaaga inuu waqti kaaga baxo iyo berri inuu dhakhtar waqti kaaga baxo. fiiri, berri waqti bes ma kaaga baxayo dhakhtar, lacag xitaa way kaaga baxaysaa. asxaabta videoga intaa gabagabeyn waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaad rabtid coach diyaaran ku ahay, coach aan kuu noqonaa. markaan ku dhahayo coach aan kuu noqonaa macnaheeda ma ahan inaan program kuu suubiyo oo kuu soo diro oo meeshaas iskugu keen dambeynayso. processka dhan waan kula soconaa. haddaad rabtid inaad murqa dhisatid diyaaran ku ahay, coach waan kuu noqonaa. haddaad rabtid miisaan iska ridid diyaaran ku ahay, coach waan kuu noqonaa. haddaad rabtid aniga inaan coach kuu noqdo waxay igala soo xiriirtaa emailkan, gacno furan ayaan kugu soo dhaweynaa. asxaabta aad iyo aad u mahadsantihiin daawashada videoga aad daawateen. haddaad rabtiin wax video inaan kasoo suubiyo commentiga hoose igu soo qora. ha iloobina videogan like na saartaan, comment kasoo bixisiin, asxaabtiin u share garaysaan. haddaa weli subscribe dhihina fadlan subscribe dheh. mar koowaad mar labaad mahadsanidin. waxaa noo balana videogan videoga ku xigo. balanteena waa muruq, socod iyo caafimaad.